waxaa gobolka Minnesota lagu qabtay xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ururada bulshada iyo marti sharaf kale oo ka kala yimid gobolada Mareykanka sida Seattle, Washington, Atlanta, Georgia, Washington DC, Boston, Massachusetts iyo Columbus, Ohio. munaasabadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay laguna talagalay in lagu xuso kulankii toddobaad ee habeenka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed kaasoo martisoorkiisa uu leeyahay aadan ugaas. xafladan oo ah mid ay bulshada ay sugto sanad kasta ayaa lagu bixiyay abaalmarino kala duwan. sidoo kale waxaa qayb weyn ka ahaa isku xirka dadka guulaha iyo horumarka ka gaaray guulihii ay ku taameeyeen iyo kuwa maanta hiigsanaya in ay ka dhabeeyaan kana guulgaaraan hamigooda iyo hankooda. sanadkan waxaa abaalmarino la siiyay Axmed Cali Cigaal oo ah fanaan caan ah oo ka tirsanaa hobolada Waabari, waxaana la siiyay abaalmarinta lagu magacaabo Grammy Legend Award taasoo hore loo siiyay fanaaniin dunida caan ka ahaa sida Michael Jackson iyo Smokey Robinson. waxaana abaalmarinta fanaanka caanka ah ee Axmed Cali Cigaal guddoonsiiyay Cabdullaahi Cabduqaadir Axmed oo ku magac dheer Soomaaliyo oo ka tirsan mas'uuliyiinta librariga weyn ee Library of Congress ee magaalada Washington DC. Cabdi Warsame oo la siiyay abaalmarinta Community Changer Award wuxuuna ku mutaystay maadaama uu yahay qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee dowladda hoose ee Minneapolis xilka qabta. sidoo kale wuxuu tusaale iyo dhiirigelin u noqday mas'uuliyiinta maanta gobolka Minnesota iyo Congress-ka xilal kala duwan ka haya oo asalkoodu yahay Soomaali. Faadumo Hirad oo lagu abaalmariyay Forest Award waa marwadii fanaankii Cumar Dhuule Cali Allah u naxariistee isla markaana soo noqotay gabadhii ugu horeysay ee noqota fanaan iyo wariye. Cabdiqafaar Aadan ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinta Business of the Year Award wuxuuna door weyn ku leeyahay horumarinta ganacsiga magaalada Minneapolis iyo shaqo u sameynta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka ku nool. Xabiiba Maxamed oo la guddoonsiiyay abaalmarinta Inspire Award oo ah hooyo iyada iyo gabadheeda isku xilli ay ka qalin jabiyeen jaamacadda oo tusaale wanaagsan u ah hooyooyinka Soomaaliyeed. Khaliif Shire Muuse oo la guddoonsiiyay abaalmarinta Lifetime Achievement Award wuxuu ciyaaro kala duwan oo u matalayo xulka qaranka Soomaaliya ugu soo saftay gudaha iyo dibadda. wuxuuna u soo ciyaaray naadiyadii heerka koowaad ee dalka ka dhisnaa sida Dekedaha, Horseed iyo Jenyo. sidoo kale waxaa abaalmarino la siiyay ciyaaryahano iyo dad door weyn ka soo qaatay horumarinta sportiska waxaana ka mid ahaa ciyaaryahano lagu soo ababiyay ciyaaraha tan iyo markii ay yaraayeen oo la siiyay tababaro kala duwan oo lagu tilmaami karo mirihii ka dhashay barnaamijka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed kuwaas oo kala ah Ramla Maxamuud, Xuseen Cabdullaahi, Sabriin Cali iyo weliba hooyo Maria Farax. waxaa sidoo kale goobta ka dhacday xil wareejin taariikhda gashay oo noqotay midii ugu horeysay ee qof xil u haya bulshada in uu ku wareejiyo mas'uulka cusub ee xilkaasi la wareegaya taasoo ah abaabulida diyaarinta qabashada ciyaaraha sanad kasta lagu qabto gobolka Minnesota ee lagu maamuuso xuska maalmaha Soomaalida Somali Week. xil wareejinta uu sameeyay aadan ugaas ayaa ah mid tusaale u ah in qof kasta uu wareejiyo xil kasta taasi oo ah mid ku dayasho mudan. mas'uulka xilka lagu wareejiyay ayaa waxaa lagu magacaabaa Ciidruus Deqdar Join Facility fi Minnesota. Flowers هاي ما شاء الله يا ما شاء الله هولكو عاود udgoon iyo qurux coronavirus-kii ayaa dadka xanibaad ku hayay qof walba waxa way caawo si sharaf leh u soo labisteen barnaamijka caawa la isugu yimid ee intan oo reemiya bariis rag iyo dumarba ay isugu yimaadeen maxaa la yiraahdaa magaciisa habeenka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed. wow yaa kamida oo kulay anigu hadii la yiraahdo mid soo qabo gabdhaha soo qaban lahaayee haldoorka yaa kamida dumarka Soomaaliyeed ee caawa halkan jooga. caawa adiguna in badan baa taqaanaa koo waxa ka ah Faadumo Hirad. wow ma sha Allah tabarakallah. dadku adduunka kale hadaynu Soomaali nahay waxa nalooga tagay
bini'aadanka dalkan aynu joognay America dadkoodii wax soo ahaan jiray ee wax soo qabtay ee ummadda soo hogaamin jiray ama macallimiinta ahaa ama wariyaasha ahaa ama ciidamada ahaa ama caafimaadka ahaa dhakhtarada ama madaxda ahaa wuxuun bay ugu yeelaan waa qiimeeyaan waa qadariyaan waana xasuustaan dhibaato badan ayaana haysato dad wali wadanka ka cusub ayaan nahay duruufo badan ayaa jira laakiin dadaalkeena iyo horumarkeena iyo wanaageena uu badan yahay waxaan rabaa haddana inaan u yeero walaalkay Axmed Aadan Cirday oo isagu ka hadli doona mowduuc dhamaanteen na wada taaban doona sidoo kalena isaga ayaa wuxuu siin doona abaalmarin ma sheegayno caawa gaadmada badan laakiin mowduuca ugu muhiimsan soo dhamaanteen inteena badan qoysas iyo caruur iyo family ayaan nahay waana sii kordhaynaa dadka noogu badan magaaladan daada caruurteena way maartay 18 jir inta ka yar ayaa Soomaali ahaan noogu badan marka waxaan rabaa arrin aad iyo aad muhiim u ah in walaalkeen uu nagala hadlo kadibna isaga oo hawsha kale ee gaadmada bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaantiin waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullah caawa waxaan kala hadli doonaa haddii Allahu yiraahdo caruur badan oo Soomaaliya la qaatay caruur badan oo Soomaaliya waxay galeen foster systemka waxaan rabaa inaan idin sheego dhacdooyin soo maray gobolkan oo markii aad dhageysato taaban doona ku xanuujin doona waxaan ka hadli doonaa xaaladda ay marayso maanta waxaan ka hadli doonaa xalka ay leedahay waxaan ka hadli doonaa single mother meel 6 caruur ku haysata oo agoon ah inay iska celin karin systemka ee loo baahan yahay communal effort kulligeen inaan isku duubanahay caruurteena aan difaacno maxaad horumarisaa maxaad hal door ka dhigtaa haddii hal loo siibayo waxaan intusi doonaa gabadhaas yarta ah June 1st way dhalatay hooyadeeda loo yimid waxaa la yiri ilmaha waa ka qaadanaynaa waxay tiri fadlan hadaa iga qaadanaysaan Soomaali igu dhiiba waxaa la yiri Soomaali ma naqaano dhamarkayga siisa waxay tiri ninkaan la hadla waa la soo wacay waxaan yiri anigu I have foster license uma baahni anigu business man bana caruurta Soomaalida si aan u badbaadiyo yaan bahalkaas soo qaatay waxaan iri anigu haddaan waqti u waayo ama fursad aan u heli waayo gabar Soomaaliya jirta oo 15 years haysatay license foster care license marka ma jirto sabab ilmahaas u qaadataan waa la qaatay taleefankii la dansaday 15 bari la maqnaa filsan waxaa lagu soo celiyay threat of a lawsuit annaga haysana maanta lix agoona ka horeysay East Grand Forks oo masaakiina hooyadoodan luqadda aqoonin waa laga qaatay waa dagaal galnay thanks to the Somali community $40,000 baan lawyer ku bixinay waa ka soo dhignay laakiin social workerada iyo dadka insiders waxay sheegayaan waxa aanan ogeyn baa tirada ka badan ilmaha la qaadanaya aanan ogeyn yaa tirada ka badan dad badan marka waxay weydiiyaan sheekada dhan waxaan soo galay February agoontaas darteed aad bay ii xanuujisay agoon masaakiina oo xoog lagu qaatay hooyadoo drug addict maaha alcoholic maaha abusive maaha luqad bayna aqoonin waxbayna iska celin karin taasana soo gelisay dagaal baan galnay waa ku guulaysanay caawa waxaan rabaa inaan idin kala hadlo mustaqbalka going forward maxaa nala gudboon yacni caruur waxaa loo qaadan karaa 4 sababood
inuu waalidku yahay alcoholic, drug addict, abusive, delinquent, inuu yahay qof xanuunsan mentally or physically, in ay intay teen pregnancy intay dhasho si aan loo dhihin wax albay wadataa ay meesha uga soo dhuumato, iyo tan ugu weyn oo ah racism. 400 oo sano iyo caruur madow la qaadanaya with impunity. wax iska weydiin jiray aysan jirin, oo Mexicaanka ku xigay, Calibaystiinka ku xigay. meeshaan waaba dhaqan ay leedahay. annagoo iska soconaa nimid dabin 400 oo sano ka hor la dhigay yaan dalaq nire. markaasaan isfiirfiirinaynaa leenahay xaajadu halkees ka qabsan lahaday. anaa kuu sheega halkees ka qabsan lahaday. waa inaan isku duubannahay, waa inaan dagaal galno. bahalkaas aan soo qaatay waqti igama gelin, lacagu igama gelin. 100 qof oo Soomaaliya hadday leedahay ilmo Soomaaliya la qaadanaya ma jiro mustaqbalka. waxaan u baahannahay inaan toosno. waa hurudnaaya. waxaa laga dhawaajiyay Xuseen Samatar, nin wuxuu ahaa aan saaxiibanahay, bishii hal mar aan kafee wada cabi jirnay. wuxuu dhihi jiray ilaahu kuu naxariiso, dadkayga waa u baqayaa. war Xuseen maxaa ka baqaysaa baas? khatarta ku xeeran iyo sidayna u ogeyn. khatarta ku xeeran iyo sidayna u ogeyn. ilaahu kuu naxariiso, waarimay sida war ha kaa haro. marka waxaan idin xusuusinayaa walaalayaalow, arrintan waa arrin muhiim ah. caruurteennii haddiina laga qaato, annagii oo waaweyn oo garbuhu intaana la egyihiin oo soo jeedna, waa ayaan daro. waa la soo istaagay waqtigaygaa dhammaaday. arrinta uu walaalkeen Axmed ka dhawaajiyey, waddankan waana lagu maqan yahay. dagaal qabow ayaa ka socda. dagaalka qabow ee ka socda qoysaskeena ayuu inta badan soo galay iyo caruurta. marka qof walba oo u baahan information dheeraada, Axmed diyaar ayuu yahay inuu la sheer gareeyo. inaa u diyaar garoono arrimaha noocaas oo kalena waa loo baahan yahay. waxaan abaalmarin siinayaa businessman of the year. anigu waxaan ahay nin businessman. haddaan background information idin siiyo, ninkan wuxuu ka mid ahaa hormuudkii jidkaan jeexay 90 bartamaydii markaan nimid. dadku shilin ma haysan, beerkay dhulka ku hayeen. dadkii bilaabay inay business furaan, ama xalaal ha ahaado, makhaayad ha ahaato, truck ha ahaado, taxi ha ahaado, dadkaasay ahaayeen dadkii suuro geliyey meesha aan maanta marayno. tirakoobkii ugu dambeeyey caddaanka marka xagga la dhigo, Soomaalidu waxay noqotay number 1 dadka shaqaysta, number 1 caruurta college-ka aada, number 1 entrepreneurial dadka business-ka abuura. fiiriya meeshaan gaarnay. dadkii na gaarsiiyey heerkaas oo hormuudku ah, aniga shakhsigan 20 sano ka hor yaa anagoo businessman wax kala gadan jirnay. waa nin muruqmaala, waa nin xalaal miirada, waa nin xaqanaaska iska ilaaliya, waana nin afgaaban. businesska waxaa lagu yaqaanaa inay hadal badan yihiin. isagu waa afgaaban yahay, waana akhlaaq badan yahay. fadlan ila soo dhaweeya saaxiibkay walaalkay Cabdiqafaar Aadan. ninkaan annagoo yaryar baan wax kala gadan jirnay. بسم الله ولقي ستيج كان كل مفولين كمان أهلين بسم الله آذن وأجاذي بسم الله وما سيها آذن يو تذكر يا عبد الرحمن مختار يو أحمد أردي وما سنتين يوحكوا عندها مشروع أحمد نواسوس شهقوي حال الذي أهريا وضلهين مركا اللي في مركز إنه هلبك أو أي نمن قال أنا كين تشرين أنا قد تشرين إنه سو كانوا مركا هلبك بقى قد نشري مركا أنت أسكري أنا سبع مسؤول غانا thank you very much thank you. halkan caawa waxaa loo yimid horumarka dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed. Axmed Cali Cigaalna waa hoobalkeena caanka ah, inkastoo aan jeclaa caawa inuu noo qaado
sida haragan gimano faraskii iyo jacaylkii inuu noo qaadaan rabay halkaan markuu taagnaa waa soo gaari waaye inay run tahay riyada haddii aad keento ood amigaaga ku darto oo aad riyali ugu darto horumarka aad higsanayso waa gaaraysaa waxaan idinkaga sheekaynahayaa hadda ka hor anigoo ka imid miyi oo 2 sano kaliya magaalo joogay gabar yarna ah walibana nimanka Soomaaliyeed dhinac bay ka raran yihiin waxay jecel yihiin gabdhaha cadcad haddaad madowdahay oo maanta dhan ag marayso waxaad moodaa xal inaad dambi ka gashay markaan imid markaa iskool baa la geeyay iskool baan dhiganahayay laakiin naag weyn oo baadiye ka timid oo waxaan ahay ilaa 17 gaadhay uqdada madowguna waa igu jiray bandhiga reeriyowga waxaan ka dhageystay bari 9 gabdhood oo Soomaaliya oo quruxda ku tartantahay yimaadeen Jubba saacad markay 2 saac tahay balaayaa dhacday who cares anigu waxaan maanta horta waa inaad tijaabisid Soomaalida arintan uqdadahuna ka harto maxaa taagan gabdhihii Soomaalida oo wada cadcad oo labisan kuwii raaxamarka kuwii carabta adduunyo hameenkii intaan seexan baan maryahan ku tagi lahaa meel dhigtay kabahaygi meel dhigtay intii markay tahay 7 o'clock baan labistay taxi baan u yeertay Jubbaan sii istaagay nimankii Soomaaliyeed oo dhan meel ay joogaan maanta Jubba diyaar lagu yahay mid shaqeeye iyo mid baaga muuda iyo mid homeless oo nin walba wuxuu leeyahay waxaad arki jirtay miyaa maanta imaanaya mise wax guryaha lagu hayay adreeskan fiirsaday dabaqa labaad qolka soo dhaweynta gabdhaha quruxda ku tartamaya waa fiirsaday waa soo galay nin baa marka hoos horay fadhiyo oo loo diyaariyay inuu gabdhaha soo dhaweeyo meel walba waxa taagan waxaan soo jiiray waxaad moodid xajka inay taraarayaan oo nimana ninkii markaan u imid waxbuu qorahayay wuxuu arkay culayska soo ag istaagay wuu ifiiriyay wuxuu isiri balaayadan maxay tahay maanta wuxuu yiri maxaa doonays soo nalooma yeerin baan ku iri laguma yeerin ma dhihi kara buteero uma laha way gudbiyay wuu naxay wuxuu yiri maanta hadaa qoftaan gudbisay armaa lagu xiray shaqada laga cayriya hoos baan fariistay waxaa la rabay gabdhuhu inay soo dhamaadaan 10:30 11:30 xataa waxa soo galaya ajnabi gabdhaha jeegaraynaya oo ma taqaana ajnabigu qurux bay yaqaanin sambaati ay yaqaanin kolbada tuuray yaqaanin geesinimo ay yaqaanin qofka dadnimadiis kuwaanu se waa ma caddahay teenti markii la joogo hal gabar oo damba ma imaan neeba eeba ma guriyii baa laga doonayaa xabadu kama soo istaagin wadna diidu yiri doonaan hal gabar oo inta soo kacda ragga soo dhaxmarta maanta tartanka timaada waa la waayay nimankii gudiga ahaa nimankii kale waa yimaadeen meeshii baa la iigu yimid waa la arkay waxba la qiimeeyay koobkii horta tartanka farta la iga saaray oo wuxuu noqday wiil walba waxa la yiri wiil adeeru yahay reerkiisa uga shakiyay markaas naagtiisu waxay ku tiri
ragga cunto u karbay tiri markaad cuntada u karisana qof walba gacanta ugu shub masagaa la karisan jiray doono marka waxay tiri markaad cuntada ragga saas u siiso ninka diidi doona inaad gacanta ugu shubta weeye ninka reerkaaga ku soo daba mara sidii buu yeelay cunugii yaraa markii cuntada la bilaabayo raggi geeska fariista ugu dhinac ugu xigsaday waa loogu shubay geeski markuu gaaro damcay inuu ugu shubo wuxuu yiraahdeen ninna igama dambeeyay qaadada igu sii kii baa noqday cidii la tartantay markaan waayo koobkii baa farta layga saaray bilad geesina waa la isiiyey 30 kun oo maalintaas joogtay 79 bay ahaydna waa la isiiyey marka yoolkaaga haddaad ka jiba gaartid oo ka run keentid oo hamigaagu uu kacsan yahayo run u kacsan yahay wallaahi waxaan goobayna waa helaynaa waa arrin la hubo dhalinyarada dadka ka waaweyn oo hadda qorshaha wada kulligiin waxaan idinku boorinayaa waxaad damcada inaad ka midho dhaliso waa ka midho dhalin kartaa ragga Soomaaliyeed oo gabdhaha la hagaajiyo hadda gabar baa halkan soo istaagtay qurux badan oo dheer waxay noo sheegtay single mother inay tahay gabdhaha single mother-ka laga daayo waa codsanaynaa please and please gabdhaha haddii aydan single mother-ka ka dayn idinkana gabdho kale ay idin soo cayrin doona caruurta inta idin kala hara gabdhaha laftigoodo idinka laftigiinu dab yar ma shidaysaan wiilashiina cishada aadinina inaad single mother noqotaan ninka ku soo hawaysto ku yimaada oo danka galo inuu nolosha kula sheergareeyo raba indhaha markaad ka qaado waxaad tiraahdaa allow maradaada iyo maradayda yaa isku keen maqiiqa labadeena oo murtaxan mirira kadibna aqalkeeno yare mugdiya madiibad caanaha meel halkeerayaal koob la soo mayray midigtaada yaa ku rida yaa ku maashooda laabtaada muunadale war moorteem hawshaasu waa marcelis assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu